waxay ahayd fiidnimadii xalay markii dabley hubaysan oo watay gaadiid qarax uu ku xirnaa iyo ismiidaameyaal ay weerareen maqaayadda Liida Seafood ee ku taala xeebta Liida ee Muqdisho xilligaas oo maqaayadaha xeebta ku teedsan ay ku caweynayeen boqolaal shicib ah. gaari walxaa qarxa lagu diyaariyay ayaa ku qarxay banaanka hore ee maqaayadda kadibna dabley hubaysan ayaa gudaha u galay iyadoona mid ka mid ah raggaasi uu gudaha isku qarxiyay, waxaana intaasi xigay rasaas xoog loo dhex martay ilaalada maqaayadda iyo kooxihii weerarka ahaa. dadkii maqaayadda ku sugnaa ayaa u firxaday dhowr jiho oo ay dhinaca badda ku jirto. ciidamada dawladda Soomaaliya oo maqaayadda tagay ayaa fuliyay howlgal lagu soo afjaray weerarka, dad meesha ku jirana soo badbaadiyay. wasiirka amniga gudaha oo ay weheliyaan taliyaasha ciidamada booliiska iyo nabad sugidda oo waqti dambe oo xalay warbaahinta kula hadlay maqaayadda weerarka uu ka dhacay ayaa xaqiijiyay dhimashada in ka badan 20 qof iyo dhaawaca 70 meeyo kale. يعني وقتها هذا هذا عاو وقتها واحد يرى وح كلام معه وحي هدينا بدبادي شعب الصوماليين يو حالة يو قابك يقول السنتها مقايدة ورنتي هيت سي أذك مال يعني إنسان سهلانين نسفض الدتك الله صار الحمد لله لكن يعني لما شدينا يو داوعي نبكي أي وذين لبعتذي وذين لبعتكير أيا رنتي أيا هلكن أقوي معني لما شذا إلا لبعتمية أيا لمتي dhaawacana inta waa ka badan yahay ilaa 7 meey waa la badbaadiyay oo ay waliba caruur ku jiraan dadka la badbaadiyay haddii ay wax soo kordhaan sababtuna wax kale ma aha dhaawac culus iyo dhaawac fudud waa ku jira wixii soo kordho oo tirada guud dhimasho iyo dhaawac gadaal ayaan ka soo sheegi doonaa subaxii. saakay oo aan mar kala tagnay maqaayadda la weeraray ayaa laga soo saaray meedadka dadkii weerarka ku dhintay, dhaawacyadana la dhigay cisbitaalada magaalada Muqdisho, waxaana goobta yeelay baabuur badan oo uu qarax burburiyay kuwaas oo ay wateen dadkii maqaayadda ku fiidsanayay. dadka weerarka ku dhintay waxaa ku jiray macallimiin jaamacado, arday, haween iyo caruur waalidiintooda la socday. mas'uuliyadda weerarkanna waxaa sheegtay ururka Al-Shabaab. weeraradan lagu bartilmaameedsanayo goobaha dadka isugu yimaadaan sida maqaayadaha iyo hoteelada ayaa sanadahan dambe ku soo badanaya magaalada Muqdisho, halka markii hore weerarada lagu bartilmaameedsan jiray xarumaha dawladda iyo dhismayaasha hay'adaha shisheeye. Cabdinaasir Maxamed Cali, Cable TV, magaalada